gobolka geeska Afrika waxaa loola jeedaa juqraafi ahaan dhul qalalan ee dhaca inta u dhaxaysa galbeedka badda cas iyo gacanka cadmeed una yaala sida gees oo kale. sidaas marka loo dhigo waa qeexitaan kulminaya 4 dowladood oo kala ah Soomaaliya, Djibouti, Itoobiya iyo Eritrea. geeska Afrika waxaa soo galaya dowlado intaas ka badan marka laga fiirinayo xagasha siyaasadda iyo dhaqaalaha sida Kenya, Suudaan, Koonfurta Suudaan iyo Uganda. badka geeska Afrika waxaa lagu qiyaasaa 1.9 milyan oo kiiloomitir iskuweer ah, waana marka la qaato qeexitaanka koobaya 4 dowladood ee kala ah Soomaaliya, Djibouti, Itoobiya iyo Eritrea. tirada dadka ku nool waa 115 milyan sida uu muujinayo tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay sanadkii 2014. muhiimadda istiraatiijiyadeed ee geeska Afrika ma ahan mid maanta iyo shalay dhalatay ee waxa ay soo jirtay qarniyadii hore, waxaana uu ahaa geeska meel ay isha ku wada hayaan awoodaha waaweyn iyo boqortooyooyinkii muddo dheer maamuli jiray dhul ka mid ah geeska. sababtuna waa in Afrika kulaalaya marinada waaweyn ee ganacsiga adduunyada bad iyo beri labaduba. laga soo bilaabo qarnigii 15aad ilaa maanta waxaa kor u kacaya tartanka iyo xusulduubka reer galbeedku ay ugu jiraan si awood fulineed ay ugu yeeshaan gobolka. tartankaas ayaa mararka qaarkood isku rogayay hardan iyo dagaal ujeedkiisu uu yahay in cidda gacanta ku haysa marinada ganacsiga adduunka ee geeska Afrika ay go'aamiso horumarka iyo kobaca dhaqaalaha adduunka. waxaa kale oo muhiimadda geeska Afrika kor u qaadaya in geeska Afrika yahay marin jasiiradda Carabta ku xiraya adduunka intiisa kale. waxaa intaas dheer in jasiiradda Carbeed ay hodan ku tahay shidaalka, dekedaha, ololayaasha shidaalka, gaaska, ganacsiga, badeecadaha kala duwan, hubka iyo wadiiqada ay dadku ugu gudbaan jasiiradda Carabta. taasina waxay ka dhigtay geeska Afrika meel aad muhiim ugu ah soo jiidashada indhaha awoodaha caalamka. maxaa ka dhalan kara isbeddelka qaab dhismeedka geeska Afrika? kadib sanado badan oo kala qaybsanaan iyo khilaafa, geeska Afrika waxa uu gelayaa marxalad cusub oo saameysay isbahaysiga gobolka. marxaladda isbeddelka oo u muuqata mid wax ku ool u ah geeska ayaa wejiyo cusub u yeelay xiriirka caalamiga ah ee geeska Afrika, iyadoo sida muuqata ay taasi u wanaagsan tahay dhaqaalaha, siyaasadda, isbahaysiga waddamada qaarkood, halka ay si xun u saameysay danaha iyo siyaasadda dalal iyo deegaano. tusaale ahaan kala taagnaashiyihii 3 dowladood ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea waa uu u wanaagsanaa waddamo ay ka mid tahay Jamhuuriyadda Djibouti, taas oo muddadii uu jiray khilaafkaasi ka samaysay dhaqaalo badan iyo saameyn caalami ah. marka la saaro dabaalduglaha siyaasadeed ee Djibouti ay ku haysatay geeska Afrika 20 sano eena dhaaftay, halbeega Winner iyo Loser ayaa ka faa'iiday khilaafka yaasa ku khasaaray. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxa uu noqonayaa Winner oo ka dhigan inuu ahaa madaxweynaha keliya ah ee isugu dhacsaneed intii uu taagnaa khilaafka waddamada geeska Afrika. balse 20 sano kadib waxa uu muuqanayaa inuu yahay Loser oo ka dhigan in isbeddelka cusub ee geeska Afrika uu u xun yahay madaxweyne Geele iyo Jamhuuriyadda Djibouti, halka Isiyaas Afwerki, Farmaajo iyo najaasiga cusub ee Itoobiya ay markaan yihiin Winner oo la macno ah in iyaga iyo waddamadooduba ay ka macaashayaan wejiga cusub ee uu yeelanayo qaab dhismeedka xiriirka caalamiga ah ee geeska Afrika. muddo ku dhow 20 sano Addis Ababa waxay ku tiirsaneed Djibouti iyada oo kala soo degaysay dekedda Djibouti 95% dhammaan alaabta uga timaada dibadda. ku tiirsanaanta Itoobiya ee Djibouti waxay ka dhigtay Djibouti waddan saameyn weyn ku leh qaab dhismeedka xiriirka caalamiga ah ee geeska Afrika. waxaa kale oo kala taagnaantii Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya qiimo weyn u samaysay halka ay ku taal Jamhuuriyadda Djibouti. sidaas awgeed waxay Djibouti martigelisay inta badan awoodaha indhaha ku haya geeska Afrika. taasina waxay sii toban jibaartay saameynta caalamiga ah ee Djibouti ku lahayd geeska Afrika. isbeddelka qaab dhismeedka xiriirka caalamiga ah ee geeska Afrika waxa uu taabanayaa siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolka. waxa uu ciyaar siyaasadeed iyo fursad fulineedba siinaya waddamo ay Soomaaliya ka mid tahay oo isha ka eeganaya muddo dheer dhacdooyinka siyaasadda ee geeska Afrika. najaasiga cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo qabtay talada Addis Ababa bishii Abriil 2018 waxa uu si dhaqsi ah u bilaabay dadaal uu isugu soo dhaweynayo 3 dowladood ee salka u ah khilaafka geeska Afrika, Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. tallaabadaas waxa ay iftiimisay in geeska Afrika uu galayo marxalad cusub kana gudbaya midii hore. marka sidaas loo dhigo isbeddelka qaab dhismeedka siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrika waxa uu luminayaa kaalinta siyaasadeed iyo tan saameyneed ee dalal ay ka mid tahay Jamhuuriyadda Djibouti ay ku lahayd geeska Afrika. sidaas oo kale waxa uu masraxa siyaasadda iyo saameynta geeska Afrika saaraya waddamo ay ka mid tahay Soomaaliya, Eritrea oo muddo dheer bannaanka ka joogay waxa ka dhacaya qolalka siyaasadda ee geeska Afrika. Eritrea iyo Itoobiya oo fagaarayaasha xiriirka caalamiga ay u tiilxan siyaasadeed oo ah inay ku lug lahaayeen dagaalka xawaaladaha Proxy War oo ka dhacay Muqdisho muddo hadda laga joogo 10 sano ayaa markaan ka macaashaya isbeddelka qaab dhismeedka isbahaysiga gobolka geeska Afrika.
si aad u fahanto Isiyaas Afwerki madaxweynaha muddo dheer xukuumaya Asmara oo dhaqaale gaaraya malaayiin dollar ku bixiya sidii uu u soo jiidan lahaa kalsoonida Mareykanka si Eritrea looga sameeyo saldhig ciidan oo Mareykanku leeyahay hase yeeshee ku guuldareystay ayaa markaan si dhib yar u helaya fursad uu doonayay sanado badan oo ah in laga qaado noocyada kala duwan ee cunaqabateynta ah ee saaran Eritrea muddo ku dhow 10 sano taasina waxaa sababay isbeddelka siyaasadda ee Geeska Afrika walwalka Afwerki ee ku saabsan cunaqabateynta saaran iyo culayska siyaasadeed ee ay ku yeelatay waxay warbaahintu ogaatay markii uu madaxweyne Afwerki u sameeyay casho sharaf madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankaas oo ka dhacay Asmara ayuu si laab xaarana waxa uu yiri Afwerki ma ahan inay sii jirto xaaladda kala qaybsanaanta nabadgelyo xumada iyo muranka xilligaas hadda waa uu dhamaaday waxaan gelaynaa xaalad cusub oo ka hawo iyo fursad wanaagsan sidii hore safarkii madaxweynaha Soomaaliya ee Asmara bishii Julaay 2018 waxa uu ka mid ahaa kuwa ugu muhiimsan ee Soomaaliya ku yeelato saameynta siyaasadda iyo isbahaysiga Geeska Afrika waxaana safarkaasi uu soo afjaray sanado badan oo ay Eritrea afuufaysay dagaalka xawaaladaha Soomaaliya iyadoo ay isku dayeysay in saaxiibkeeda maanta oo ahaa cadowgeedii shalay ay xilligaas uga argoosato gacmo kale kulankii labada madaxweyne ee Eritrea iyo Soomaaliya waxa uu ahaa isku xirka bilowga marxaladda cusub iyo dhammaadka xaaladaha kala go'naanta iyo gabaadsiinta jabhadaha waana taasi sababta uu madaxweyne Afwerki ugu sheegay kulankii dhexmaray isaga iyo Farmaajo in aanay jirin sabab ay u kala qaybsanaadaan khilaafkan uu sii jiro bilowga gurashada miraha isbeddelka Geeska Afrika diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa duulimaad toos ah ka bilowday Muqdisho iyo Addis Ababa taasina waxa ay ka mid tahay tillaabooyinka ganacsiga iyo dhaqaalaha waxaana daba socday Kenya Airlines oo shaacisay duulimaadkaas iyadoo ujeeda fursadda iyo suuqa dhaqaale ee ka dhex sameysmay isbeddelka Geeska Afrika sababta ugu weyn ee labadaas diyaaradood oo saameyn duulimaad oo heer caalami ah ay u imaanayaan Muqdisho waxaa dadka falanqeeya qaab dhismeedka siyaasadda Geeska Afrika ay u arkaan xasiloonida iyo xiriirka ka dhex sameysmay Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea dhinaca dowlad goboleedyada Soomaaliya dareenkii uu muujiyay hogaamiyaha xisbiga UCUD ee Somaliland Engineer Faisal Cali Waraabe ee ku aadan in Itoobiyada cusub oo loo heystay in ay ula dhaqmi doonto Somaliland sidii ay ula dhaqmi jirtay xukuumadihii soo maray Itoobiya waxa uu ahaa mid sax ku ah isbeddelka siyaasadda Geeska Afrika isbeddelka siyaasadda Itoobiya ee ku wajahan Somaliland waxaa muujinaya isku shaandhaynta heer wasiir ee uu sameeyey madaxweyne gaashaanle sare Muuse Biixi Cabdi Dr. Saacad Cali Shire oo xilka wasiirka arrimaha dibadda hayay xilligii madaxweyne Silaanyo intiisa badan iyo sanad ka mid ah xilliga madaxweyne Muuse Biixi ayaa lagu bedelay Yaasiin Xaaji Maxamuud Fartool oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska tallaabadaas waxa ay muujinaysaa sida uu gebi uga lusho dadaalkii aqoonsi raadiska ee Somaliland waxaa suuragal ah in isbeddelka qaab dhismeedka siyaasadda iyo dhaqaaluhu uu saameeyo heshiiska dekedda Berbera oo xukuumaddii Hayle Mariam Desalegn Boshe ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya ay daraf ka ahayd heshiiskaas iyada oo qaadatay saami dhan 19% manhajka siyaasadda ee Abiy Ahmed Cali ra'iisul wasaaraha isbeddel doonka ah ee Itoobiya ayaa la yimid hab cusub oo xukuumaddiisu ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada Soomaaliya sida muuqata waxaa isbeddelka Geeska Afrika uu yirdaha ka xiraya dhammaan madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya oo xiriir xiratarar ku ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya la lahaa xukuumaddii hore ee Itoobiya Somaliland waxay ku dhawaaqday gooni isku taag iyo in ay ka go'day kana baxday jamhuuriyadda Soomaaliya balse weli ma helin waddan qura oo aqoonsada sababta waxaa laga yaabaa inay tahay madaxda gobolkaas oo aan ku joogin jidkii ay ku rumoobi lahayd madax banaanida Somaliland iyo adduunka oo aanan soo dhaweyn u haynin kala go'idda Soomaaliya Puntland iyo Jubbaland marka xagashaas laga eego laguna qiyaaso madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya qaarkood ayaa u muuqday in isbeddelka siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Geeska Afrika uu u soo jiiday guuldaro siyaasadeed loser waxa ay lumiyeen xiriirkoodii siyaasadeed oo ay la lahaayeen Itoobiya kaas oo ku dhisnaa siyaasad barbar socota wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya xiriirkaas oo gacan saaxiibtinimo iyo taageero ay uga samaysanayeen wadamo ay Itoobiya ka mid tahay qormadan waxaa qoray Axmed Ciise Guutaale oo darsa sharciga iyo qaanuunka